maayirka degmada Burco xogayaha dawladda hoose iyo qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka ayaa maanta si wada jir ah u dhagax dhigay dhismaha dugsi sare oo laga hirgelinayo degmada Yurowe oo baahi weyn u qabtay inay hesho dugsi sare. maayirka degmada Burco oo ka hadlayay dhagax dhigga dhismahan ayaa waxa wasaaradda waxbarashada ugu baaqay inay dhamaystirto agabka iyo macallimiinta dhigi doonta dugsigaasi. waxaan ugu kalifay ardayda halkan secondary-ga dugsigu waa dugsi hoose dhexe markay standardka ka baxaan waxa ay tagaan Burco 20 kilomitir in ka badan ayaa ardaygu subaxii halka inta ka quraacdo oo halka taga bari farta fasal halka ka dhameystirno afarta fasal markaan dhameystirno wasaaradda waxbarashada waxaan ku codsanaynaa maadaama shaqada aan ka shaqeynaa ay tahay shaqadii wasaaradda in ay iyaguna macallimiintii keenaan. xogayaha dawladda hoose Cusmaan Sheekh Cusmaan Nuur iyo qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka oo halkaasi ka hadlay ayaa iyaguna waxay ka warameen baahida uu deegaankan u qabay inuu helo dugsi waxbarasho iyo waxyaabihii ay hore dawladda hoose uga qaban jirtay dhinaca waxbarashada. halkaas iyagu isugu tageen oo ay sameeyeen aad iyo aad bay u mahadsan yihiin. bilaadankuna markuu qofku wax keeno uu wax soo kordhiyo wuxuu u baahan yahay wax si gacan qabta. ay taraag dheer galaan oo anagu walba ay culays lagu hayeen oo hawshii gaadiidkoodii iyo shaqayntoodii iyo wada dheer hayaan waxaanu taa u doorbidnay inaanu maanta u dhagax dhigno secretary-gii iyadoo laba horo galaas u dhisnaayeen oo qabyo ahaayeen labada galaasna loo qabyo tirayo laba cusubna aanu u sameynayno. tan waxay ka timi markaanu aragnay tacabka haysta inamada reer Yurowe wax dhiganaya dadaalaya safarka dheer u gelaya Burco. qaar ka mid ah dadka deegaanka oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa dawladda hoose uga mahadnaqay dadaalka ay ugu jirto inuu deegaankani helo dugsi sare oo ay dhibaato baan ku qabeen ardayda deegaankaasi. maayarka xildhibaanada iyo xogayaha dawladda hoose ee degmada Burco dhibkii naga haystay ardayda halka ka baxda ee 20 kilomitir tagaysa ayay maanta naga dulqaadeen. waxaa halkan loo dhagax dhigayaa laba galaas oo ay dhisayso dawladda hoose ee degmada Burco oo loogu talagalay markaas haddii ilaahay idmo in maaragtay ardaydu ay ka kaaftoomaan sadaalkii dheeraay waxbarashada Burco u galay cid ka shaqeysana aad baan ugu maqnay maayarkuna waa gees wana aad geesiyo maalintii aan iskuulka beereed furaynana qofkii koobaad ee wax nagu darsadaa ee yiraahdaa hawsha waxbaan ka qaadanayay qurbo joog saas u yara geejinayo oo ganacsatada ay sare geejinayso ninkii koobaad ee yiri war waynu dhisan karnaa haddii la dhigo contribution-kii koobaad ka bixiyay maxamed muraad baha. si kastaba ha ahaatee deegaanka Yurowe oo qiyaas ahaan u jira magaalada Burco 20 kilomitir ayaan lahayn dugsi sare iyaduna aanay hore wasaaradda waxbarashadu wax qorshe ka yeelan balse dawladda hoose ayaa iyadu dareentay baahida waxbarasho iyaduna deegaankani ka hirgelisay dugsi ay wax ku baran doonaan ardayda dugsiyada sare ee ka soo baxa deegaankaasi. Shaafici Maxamed Ibraahim, Telefishinka Somali News, gudaha magaalada Burco.